waayahay waa war degdeg ah baasha waaba kasii dartaba xuutiyiinta caawa hadal soo saaray xuutiyiintii caawa laba hadal oo argagax leh ayaa horta soo yeeray waxay noo dhiibeen qishkaasoo ah xilliga dagaalka ee kusoo biirayaan hour zero waxay taagan yihiin sida aniga u fahmay labada maalin ilaa saddexda maalin ee soo socoto dagaalka si toos ugu soo baxay hadalka kale argagax leh caawa kasoo yeeray xuutiyiinta wuxuu yahay badda cas oo lagu baabi'i doonaa taagiin badda cas red sea oo Eritrea ay marto Sacuudiga uu maro oo Masar ay marto oo Suudaan ay marto dhulkan Soomaaliya albaabka u ah xuutiyiin maadaama anaga daris inay leeyihiin waxay taagan yihiinba markabka soo maraba dabal qabadsiin doonaa way hadalkaas yaab kale gadaalka falqayn doonaa laakiin waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo hadalka afka ah ama dagaalka afka ee caawa qarxay ee u dhaxeeya Abbas Araaji wasiirka arrimaha dibadda Iran iyo ninka la yiraahdo Donald Trump mar kale ayuu daqiiqado ka hor hadal soo dhigay hadalkaanoo u muuqdo Trump inuu qaabku wax ku qaadan jiray Donald Trump oo ah handadaad inuu dalalka kale ee Yurubta u handado caawa hadalkii ku soo celiyay waana loo soo jawaabay waxaa u soo jawaabay ninka la yiraahdo Abbas Araaji oo asagana hadal kulul caawa soo saaray waxaan ku bilaabaynaa intaanan xuutiyiinta iyo gadaalka falanqeynin marka hore waxa idin horyaalo waa hadalka Trump uu soo qoray Trump wuxuu leeyahay sida ujeedaan Mareykanka si fiican uu garaacay Iran dhan walba ku garaacay military ahaan uu garaacay dhaqaale ahaan uu garaacay u taagan yahay waa burburin u taagan yahay laakiin wuxuu taagan yahay dalalka kale ee ayagana shidaalka iyo saliidda ka helo dhulkan Hormuz waa marinka Hormuz ayagana waa inay qaybtooda ka qaataan annagana waa caawin doonaa u taagan yahay waxaa loo baahan yahay in aan arrinkan iska kaashano waa in iska dalalka kale iyo Mareykanka iyo in iska kaashano waa u taagan yahay sida ugu dhaqsiya badan uguna fudud wuxuu kaloo leeyahay arrinkan waxay u baahan tahay team effort dadaal dhan walbaba iyo dalalka dhan inay ka qayb qaataan markaas kadib waa kulaha markii la isku imaado maraakiibta Europe maraakiibta Asia maraakiibta Africa marka meesha la isku imaado Mareykankan uu jooga asal wada shaqeyn kulaha lagu goobta Iran markaas kadib le barwaaqo iyo reen iyo markaas ay dhacaysa waxaa hadalkaas soo qoray ninka la yiraahdo Donald Trump waa loo soo jawaabay ninka odayga ahaa Abbas Araaji oo jeedaan wuxuu leeyahay amniga Mareykanka uu sheego inuu dhulkan keenay in ilaa saldhigyada Mareykanka Sacuudiga ku yaalo Kuwait ku yaalo Qatar ku yaalo Bahrain ku yaalo Imaaraat ku yaalo waxaas oo dhan Mareykanka saldhigyada sababta uu ugu leeyahay dhulkaas wuxuu yahay moogtaa amnigiina suga Iran idinka ilaalina wuxuu leeyahay Araaji Mareykanka amniga suga uu leeyahay waxa soo shacbaxdu leeyahay maalmahan dagaalka kula jirna awgis in duleelo far badan ay jiraan amniga uu ninkan sheegaba daladan amniga uu sheegtaba duleelo far badan ay leedahay wuxuu kaloo ku daray hadalka amniga uu Mareykanka rabay inuu keeno waaba bilcagsigeeda noqotay meesha dhibaatada keentu taagan yahay waraa ninkan Araajiga wuxuu la hadlayo waa Carabti wuxuu taagan yahay Carabay dhibaato isku soo jiideen maadaama saldhigii Mareykan isfaaridiis balaadiis ama meesha keensateen dhibaato isku soo jiideenba wixii amniga u maleynaysan waxay idinku noqdeen balaay kale wuxuu hadalka ku soo gabagabeeyay Iran waxay ugu baaqaysaa dalalka dariska ah oo walaalaha ah yani Carabtu ka wada in iska ceeriyaan balaayadan iska ceeriya gaar ahaan wuxuu leeyahay especially as their only concern is Israel maadaama Carabtii Israel nacibi hadda ayaga yiri mugtaqa arrinkii Gaza iyo Falastiin ka socoto dhan Carabta dhan soo isku wada raacin in Israel ay balaayo meesha dhex degan tahay marka ninkan wuxuu leeyahay war hadiiba Israel saas u diidantihiin Allah iska buriya iyaga Mareykan waa sultaani xuutiyiinta dib noogu soo celi war caawa xuutiga wuu hadlay xuutigi wuu hadlay laba hadal soo saaray wuxuu yiri waa isla hadalnay dhaheen ninka xuutiga u hadlay caawa afayeenka wuxuu yiri Iran waa isla hadalnay madaxdeeda waxaan isla meel dhignay xilliga dagaalka ay geli lahayn waa isla meel dhignay ayuu leeyahay hour zero yani hadalka caawa uu soo saaray ninkaas aniga waxa u fahmay in la wada hadlay oo maadaama hadda u muuqato Mareykanka inuu xulufo dhisanayo xulufo Israel ka baxsan oo Yurubta hadda ogtiin Ingiriiska waa soo socdaa Faransiiska maraakiib uu soo diray Yurubta kiskisa dagaalka u soo galaysa sida ogtiin ayagoo ku marmarsiyoonayo safaaradeena la soo weeraray yani dalal fara badan dagaalka soo galay hadaadan ogeen oo xalay Ingiriiska dirtaan Soomaaliya Ingiriiska Bahrain waxa la ka dhex dagaalamay mala socdo taas diyaaradaha Ingiriiska xalay Bahrain hawadeeda inta badan diyaaradihii iyo gantaaladii ay soo dirtay Iran waxa la dagaalamayay ciidamada Ingiriiska Israel iyo Mareykan waxay ku mashquulsanayeen
jucda inay ka gediyaan qaybo ka mid ah iiraan gudaheeda iiraan marka iyo xuutiya wada hadlay warkaa idin siiyay iiraan waxay tiri war heedhe waa la isxulufaystay ciddii xisbullah ahayd dhinacay qacda ka wadaa oo ciidamo lugta la iskula tegay xitaa xisbullah waxaa ka hadlaynaa lubnaan iiraan marka waxay tiri xilligaa la gaaray xuutiyey qoriga akaa busta ka jafan lahaydeen dhinaca ka soo geli lahaydeen waayahay xuutiga waxay hadalka ku dareen sheekada hadda hormuus ka socota hormuus maalmahan soo lama arkaynin maraakiib dab uu qabsadoo qiiqaayo xuuti caawi wuxuu leeyahay tiyaa badda cas ka soo socoto badda cas oo baddaan soomaaliya hadda maanta muhiimku ah oo turkiga uu soo maro markuu imaanayo soomaaliya oo sacuudigan hadda heshiiska aan la galnay soomaaliya hadaan nahay dhulkan ay soo mari jireen ammaanka ahaa xuuti wuxuu taagan yahayba hawadeeda kicinaa hawadeeda ayaa kicinaya taas waxaa kaaga sii daran dabcan had 2 maalin ka hor waxaa soo shaac baxay israa'iil oo tiri xuutiga dagaalka soo geli rabo sida ugu hortagi lahaa oo la dagaalami lahaa falankeeda waa inaa galo waa tii somaliland sheekada meesha ay saldhigaan cusub berbere agtiisii wixii waatay soo shaac baxeen warwarka haddaa idin siiyo aniga waxaa ii muuqato dagaalka waa ballaartay dagaalka wuxuu noqday isxulufaysi sidii aa ogeyn ka sii ballaaran maadaama hadda 6 dal oo Yurub dagaalka ay soo galeen oo hawada carabta ay ka dagaalamayaan Iiraan ciddii Xisbullah ay ahayd ayadana dagaalka ay ku jirto qacda ilaa hadda ay socoto ogtiin wax hadda ka dhacay Lubnaan holaca hadda iyo burburka ka socdo Lubnaan waa yaabaysa dawladii Lubnaan hadda caawiyaaban oo carartay oo Paris tagtay oo taagan war Israa'iil laga hadlo maadaama meesha iska soo duqeynayso Xisbullah waaya adi almuhim marka waxa la leeyahay xilligii waxa la gaaray xuuti uu dagaalka soo gali lahaa xuutina maxay ku taqaaniin gantaalo dheer oo balaayo ahna wuu haystaa kuwa gagaaban oo balaayo ahna wuu haystaa dronesna way haystaan balaayo dooman yaacayo ordaayona way haystaan laba qodob oo degdeg ah soo korortay Israa'iil sida u jeedaan saxaafadda ayaa hadda waxay qoraysaa in hubkii difaaca cirka ee Israa'iil uu gabaabsi yahay waliba critically ماشي ugu halis ماشي ugu يعني waxa way waxay marayaan hadaanan bari la soo gaarsiinin gargaar difaaca cirka ah in gantaalada iyo droneska Iran ay soo tuurayso wax qaban doono aysan jirin waa halis saxaafadda ayaa qorayso waa arrin aad iyo aad u culus oo dabcan Iran ay caawa aad ugu farxi doonto taas waa kiis culus waaye waxa muuqanayso in difaaca cirka sidii Iran ay u tala gashay inay noqotay difaaca cirka Israa'iil waxyaabo fara badan boqolaal kumanaan ah oo drones iyo gantaal inay soo tuurtay si ay u daaliso ee u baabi'iso ee u ciribtirto hubka difaaca cirka Israa'iil waa kiis culus dabcan waxa laga yaabaa Iran inay caaw u dabaaldegto arrinkaas ayagoo tuuraayo gantaalo kale oo dheeri ah in la qaban karay in kale fiirin doonaan kaas waa kaas war xuutiintii hadalkooda hadalay soo raacsiyan caaw xuutiintii haddaad waatay dhaheen badda cas way hulcaysaa caawa sida u jeedaan sargaal hadlay oo xuuti asagana sargaalka xuutiga caaw wuxuu yiri baabul mandab xirnayna baabul mandab hadda isleedahay maxay tahay baabul mandab wata qariirada Soomaalina fiiri Yemen iyo Soomaali dhaxdooda baabul mandab xirnay taagiin laba talaabo qaadanay talaabada koowaad Mareykanka Israa'iil laga mamnuuca iyo maraakiibtooda ganacsi noqdaan military noqdaan qam mid labaadna dhammaan macaamiisha meesha isticmaasho Turki jinni Shiinaas kulli waa laga mamnuucaya ayaa xuutiintii war taagan yihiin war waa ka darta sheekadii xiisa yeelata xiiso